Salaamu calaykum walaalayaal. Kusoo dhawaada daawadayaasheena qiimaha badan dul istaagi doono waxyaabaha sababa isbedelka cimilada. Baarisyo kala duwan kuwaasoo laga diyaariyay isbedelka cimilada waxaa la isku raacay in uu yahay isbedelka cimiladu hawada isbedesha taasoo ku bedelata qabow ama kuleyl. Isbedelka cimilada ayaa waxa uu u horseedaa deegaanada qaar roobab joogto ah, sidoo kale daadad sida deegaanada qaar ka dhacda daadad joogta kuwaasoo ka dhaca wadamada adduunka, khaasatan wadankeena Soomaaliya. Waxa ku aragnaa mar walba gobollo cusub oo ka dhacayaan daadad joogto ah. Sidoo kale waxa uu roobabkaasi ay la imaadaan in beeralaydu uu saameyn ba'an uu ku yeesho kuwaasoo dhulalkii iyo geedaha beerteenba uu ka saameeyo. Waxa oo kale uu la yimaadaa kuleylkaasoo uu ku yimaado deegaanada qaar. Sidoo kale bilaha kuleylaha ahna waxa uu keenaa kuleyl zaid ah. Bilaha qaboobaha ahna waxa uu keenaa qabow ka badan qabowyadii hore sanadadii hore. Sidoo kale isbedelka cimiladu waxa uu keenaa dabeeladaasoo ka kaxeeya ciidii caafimaadka qabtay dhulkeedii ama beeralayda aadna u saameysa, sababtoo ah dhulku haddii ciidii caafimaadka qabta oo dhirta beeri lahayd ay ka biibto waxa ku dhacaya beeralayda saameyn ba'an kuwaasoo u horseedi karta in dhirta aysan soo bixin. Sidoo kale isbedelka cimiladu waxa ay keentaa roob yari taasoo saameyn ba'an ku yeelata reer miyiga iyo duurjoogtaba, sababtoo ah waxay ku xiran yihiin biyo ay ka cabaan baliyo ama wabiyada kale kuwaasoo ka qalali kara. Waxayna u horseedi kartaa inay deegaanadooda ka guuraan oo ay raadsadaan deegaanada biyaha ku yar kuwaasoo xoolahoodana ay daaqsadaan ayaguna ay ka helaan biyo ay cabaan.